intii dhimatay waxa meeshan ka dhacday dhacdo xanuun badan dadkii ka dhinteen iyo ehelkii qaraabadii samir iyo iimaan Allah ka siiyo annagana Allah naga daba naxariisto dhacdadan maanta dhacday tan kaliya ma ahan dhacdooyinku waa badan yihiin waxa ka horeysay dad aan xujeen ah oo u socda xadka qaarna u socdo oo odayaal leh oo caruur leh oo waxaan ku yidhi jidka loo galay oo meesha asaguna ugu damasgareeyey oo 7 qof ay ku dhimatay tan maantayna waa la ogyahay waa artay qabrigii baan dul taaganahay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin da'iqatul mawt waa la wada dhimanayaa waana lagu sii kala hormarayaa waxaan dul taaganahay waa dad la laayay maantay oo birimageyda ah oo safar ah oo dumar iyo caruur isugu jira reer dhan oo la rogay oo dad safar ah oo wadada iska marahayay oo ibnu sabiil ah oo maamadii iyo ninkeedii waxaan ku leeyahay nin iyo xaaskiis iyo walaashiis ah waxaanu aad iyo aad uga tacsiyeenaynaa dadkaas waxaan leenahay dhammaan ehelkii ay ka geeriyoodeen marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed samir iyo iimaan Allah ka siiyo gaar ahaan dadka deegaanka ee degmada Saaxo samir iyo iimaan Allah ka siiyo gaar ahaan shacabka Puntland oo dhan samir iyo iimaan Allah ka siiyo inta markaan ka soo gudbo dhacdadan ma ahan maanta kaliya mid dhacday waa dad dhacdo soo noqnoqotay oo wadooyinkaas u kala baxa dawlad deegaanka iyo galbeedka mudug gaar ahaan degmada Saaxo iyo eriyadan aad bay ugu soo noqnoqotay dhacdadaasi waa markii tobnaad ama wixii la mid ah oo dad birimageyda ah oo caruur iyo dumar iyo ibnu sabiila bishii hadda tobnaad waxaan leeyahay bishii 8aad ee hadda sanadkii dhamaaday 2023 bartaan hadda aan taaganahay bay ahayd taas oo kale dad safar ah oo wadada maraya ayagana oo ibnu sabiil ah oo halkan ka tagay Saaxo oo u socda santarka Gaxandhaale ayagana sidaas oo kale loogu laayay oo loogu xasuuqay marka arintaas waa arin soo noqnoqotay dadka dhibka geysanayaan waxay ka imaanayeen dhinacan galmudug gaar ahaan bandiirada iyo galnasoor iyo eriyadaas waana wax loo wada jeedo wax qarsoon ma ahan hadda ka hor uu nagala soo qayb galay gudoomiyuhu markastana wax soo noqnoqonay ahaayeen marka waxaan leenahay cid ay qusayso iyo hay'adaha amniga iyo maamulka Puntland oo hadda uu nagala joogo barasaabkii gobolka mudug iyo dawladda maxaan ku yiraahdaa federaalka intaba in arintaas cidii ay qusayso lagala xiriiro dadkaas kulli waa ciidamada maxaan ku yiraahdaa daraawiishta galmudug dhibaatada waxa geysta markasta oo soo noqnoqota mar ma ahan oo laba ma ahan lama oran karo waa beelo isku dhacay waa arin siyaasadeed baan anagu leenahay leano waxa weeye wadanka wada ogtiin al-shabaab iyo hawlaha ku jira dadka dhex shaqeynaya beelaha isku dhacooda iyo inay maaragtay markastaba wadanka uusan amni noqonin weeye ma aan beelo isku dhacay waa la oran karaa Soomaalidu way isleen jirtay intii waqti dheer macnaha sida dhaqanku yahay Soomaalidu way isdishaa laakiin dad maaragtay maxaan ku yiraahdaa maata oo birimageyda oo odayaal iyo dumar iyo caruur iyo dad noocaas oo kala waad ogeydeen hadda wixii ka dhacay qabalaha maxaan ku yiraahdaa dacdheer ee santarka Gaxandhaale degmo Galaadi bishii labaad bay ahayd ayadaba 5 caruur oo dugsi ka soo kacday ayaga laftooda lagu xasuuqayay waa isku dad waxa maanta soo dhan fulinaya ama ha noqdeen maxaan ku yiraahdaa dhinacan dawlad deegaanka ka geysteen degmada Galaadi xuduudkeeda koofureed ama ha noqdeen galbeedka mudug dhinacan degmada waxaan ku yiraahdaa Saaxo iyo eriyada ka geysteen waa isku dad waxa geysanaya dadka shacabka waxa loo dhibaataynaya waxa weeye isku dhaca beelaha baa laga faa'iideysanaya inay sii socoto wadanku soo nabadgelyo gaarin oo ummaddu aysan ku nasan marka waxaan leenahay sidii aan markii hore odayaashii iyo raggii iga horeeyay u mareen baaqa waxaan u jeedinaynaa dadka ay qusayso hay'adaha amniga maamulada in arintaas la xaliyo oo si dhab loo fiiriyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun meeshatan waxaan kor joognaa dad maanta la laayay oo lagu laayay meeshan Saaxo dusheeda oo meydkoodii baanu hadda dul joognaa waxaa meesha jooga odayaashii iyo cuqaashii iyo maamulkii degmada gobolka mudug waa wax marxaati doontaa waxa meesha ka dhacay dhacdada maalin walba dhacdana ayaga sameynaya jidkan bay galeen maantay 6 qof baa ku dhimatay intoo kalena waa ku dhaawacantay de waxaanu dadweynaha ogeysiinayna oo maamulada ogeysiinayna oo maamulka galmudug ogeysiinayna oo dawladda federaalka way ogeysiinayna oo dawladda Puntland ogeysiinayna arintaas arrin maalin walba halka ka taagan weeyo
dee nin gacmo waayey ama raganimo waayeyna ma jiro laakiin waxaan xushmaynaynaa soomaalinimada wadagalka yacni dadka soomaaliyeed oo dhan xushmadiisa yaanu xushmaynaynaa baanu u sheegaynaa dowladda federaalkaanu u sheegaynaa midda puntland baanu u sheegaynaa midda galmudug baanu u sheegaynaa waxa meeshaa ka socda oo 24 saac aan laga daalayn oo aan laga xishoonayn oo aan rabbi laga baqayn oo rasuul laga baqayn oo ummadda laga baqayn baanu maamulada u sheegaynaa alxamdulilah sala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun kullu nafsan daa'iqat almowt naf kasta waxay dhadhaminaysaa geeri maantayto oo ay bishu tahay 26 bishii koowaad 2024 waxaan joogaa degmada Saaxo waxaana u imid arrimo amni waxaanu hadda goobjoog hadda aanu dul joognaa qabriga qabuuraha 4 qof oo lagu dilay isla degmada gudaheeda aynu ku laayeen koox burcad ah oo jidka u gashay oo qaadico dariiqiin ah ilaahay waxaan ka baryayaa 4 qof oo meeshaan ku aasan iyo qof shanaad oo asaguna dhintay oo dhaawaci u dhintay inta jidka loo sii waday gaalkacyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariiso waxa weeye gacanka xaq daran baa dishay jidgooya loo galay waxa weeye kolley xilligooda ma ay dhaafeen laakiin sabab waxaa looga dhigay dad shabaab ah oo jidka u galay oo waxa weeye si arxan darro ah oo soomaalinimo aan lahayn oo islaamnimo aan lahayn oo ehelnimo aan lahayn oo waxay ka xishoonayaan aysan jirinin baa jidka u galay ilaahay waxaan ka baryayaa samri iyo iimaan ehelkii ay ka baxeen inuu ka siiyo gaar ahaan caa'iladii hoose oo ay ka baxeen iyo qoysaskii iyo carruurta allah u koriyo intaas waxaa xanuunka leh 2 arrimood weeye mar waa hal qoys dadkaani oo hal faamil bay ka kooban yihiin oo hal guri bay dhammaantood ka baxeen 12 qof oo isku gurigaa bay ahaayeen 5 waa dhimatay nin iyo xaaskiis iyo walaashiis iyo wiil abti u yahay iyo wiil adeer u yahay iyo nin kaloo isaguna aan ka fogeyn 5 qof baa geeriyootay inta dhaawaca ahina waa intaasoo kale waa caa'iladii hoose gaari bay saaraayeen waa arrin naxdinle caa'ila intaas la-eg oo qoys intaas la-eg oo intaasi ka baxday iyo 6dii kale oo iyaguna dhaawac ah oo waxa weeye lagu dabiibayo weliba dhaawac culus oo gaalkacyo lagu dabiibayo marka hal qof laga reebo oo goldogob ah shayga labaad oo isaguna tiiraanyadaba waxay tahay arrinkaani wuu soo noqnoqday mar ma ahan 2 ma ahan 3 ma ahan intii hadda 2023 bilihii u dambeeyey iyo bishaan hadda koowaad oo 2024 waa dhacdadii afraad dhacdadii koowaad waxay ahayd oo hadda anigu intii aan joogay liibaan nin la yidhaahdo iyo tiim la socday baa jidka loo galay oo ay dhashay gabadha arrimaha haweenka dhuux baa dhashay markii labaadna waxay ahayd dad xujay ah oo jidka loo galay oo 7 qof ahayd 7 qof meelaha ku dhimatay dhacdadii saddexaadna waxay ahayd carruur yar yar oo dugsi quraan oo 5 ah oo ayaguna madaxa laga wada toogtay dhacdadii afraadna waa tan oo maantayto ayaduna waa 5 qof baa ku dhimatay waxaad moodaa dhacdooyinkaas soo laablaabanaya in ay wax naxdin la yihiin soomaalinimo iyo ehelnimo iyo islaamnimo midna aan lahayn dadka deegaankani ama jid waa geli karaan ama tallaabooyin waa qaadi karaan laakiin mar kasta nabad baan ku wada hadalnaa odayaasha deegaanku inay nabad ka shaqeeyaan ehelku nabad ka shaqeeyo dhallinyaradu nabad ka shaqeyso markii la isiraado xooga ayaan way soo roonaanaysaaba meel bay ka butaacaysaa arrinkaasi waa arrin shabaab baa ka dambeeya wuxuuna doonayaa dadka deegaanka inuu isku dhufto gacmaha shabaabka oo ku jira waxaan ka codsanaynaa galmudug inay wax ka qabato oo ay dilaahay ku roon yahay ay dadkaasi gacan bira ku qabato odayaasha deegaankana waxaan kala hadlaynaa in ay nabad iyo deegaankan sidii loogu wada noolaan lahaa laga wada shaqeeyo deegaankani waa deegaan 3 geesood ah xuduud wuxuu kala leeyahay dhinaca Itoobiya xuduudna 2 xuduudoodna oo Soomaaliya midna Puntland ay tahay midna galmudug ay tahayna waa ka jiraan 3 geesoodkaas isfiirsanaya wuxuu u baahan yahay 3 maamul
in ay si fog oo qodo dheer nabadgelyadeeda halkan looga wada shaqeeyo culays la saaro waa meel al-shabaabka iyo daacish iyo kooxaha khawaarijta oo dhan ay ku gaban karaan oo ay dadka ka soo abaabuli karaan oo fidnooyin ay ka samayn karaan ama gabaad ay ka dhigan karaan oo ay ku dhuntaan waayo dadka inay isku diraan oo kala dambayntu linto oo sharcigu lumo oo dadku isku baaba'o meelaha noocaasi waxay jecel yihiin aalaaba inay ku dhuntaan cidna weydiin mayno waa dhaqamadooda inay dadka isku laayaan inay dadka isku diraan inay qabiil isugu abaabulaan inay kooxaha soo hubeeyaan yacni waa arrin daba dheer arrinkaas wuxuu u baahan yahay in laga fiirsado insha allahu saddexda maamulada weliba gobolka doollo iyo gaxandhaale oo noo dhow iyo galinsoor iyo galgalad oo iyaguna halkaa nooga dhow oo galmudug ah waxaa jira iyaguna galguduud galmudug baa waxay u qaybsantaa laba gobol oo dhinacna waa mudug dhinacna waa galguduud labadaas gobolna waxaa la rabaa iyaguna in ay wadajir ayagoo ah oo midaysan ay shirkaa ka soo qayb galaan innaguna haddii ilaahay ku ranya gubasha annagaa dhigayna waxaa la rabaa dalkan nabad buu u baahan yahay tallaabada hadda dhacdayna hawsha hadda dhacdayna waxaa la rabaa tallaabo qaadkeeda galmudug baa laga rabaa si degdega inuu jawaab ay uga bixiyaan dad wada dhashay baa meeshaan degan hadda tusaale waxaan u soo qaadan karaa guddoomiyaha gobolka mudug oo kaleeto oo dhinaca galmudug marrixaan ninka la yidhaahdo labadiisii caa'ilo weeye waxaa halkan ku lamaanay waa hooyadiis iyo aabbihiis hooyada iyo aabbaha ilaahay ha isku diro dhibaato ka weyni ma jirto yacni waa dad wada dhashay oo ilaahay baa meeshaan ku wada abuuray dadkani waxay u baahan yihiin nabad bay u baahan yihiin odayaashii nabadda ka shaqeeyey oo mudug ka shaqeeyey oo gaalkacyo in lagu wada noolaada ka shaqeeyey oo ilaa garacad ka shaqeeyey oo ilaa goldogob ka shaqeeyey mudug dhinaceeda gaalkacyo dhinaceeda qorax u dhacaya dhinaca galbeedkaaba dadkii nabadda ka shaqeeyey halkaani way u baahan tahay in laga wada shaqeeyo halkaani waxay u baahan tahay nabad suuragal ma ahan gobolka dhinacna inuu dab qabsado oo uu dab ka baxo dhinacna uu nabad ahaana wax saxa ma aha insaannimo ma ahan ehelnimo ma ahan walaalnimo ma ahan islaamnimona ma ahan waxaa loo baahan yahay gobolkan in loo guntado deegaankan saaxo ilaa galinsoor ilaa bandiiradley ilaa iyo haddii ilaahay kuu ruwan yahay cadaado in loo wada gurmadaa loo baahan yahay oo nabad laga dhaliyo oo gogol la dhigo oo laysugu yimaado waxa weye 100 sannadood baa laysku leynayey lama kala adkaado lama kala durko laysma daayo nabad laguma seexdo yacni waa wax ayaan darro ah islaamnimo ma aha ilaahay baa ina xisaabaya dadku nabadgelyu u baahan yahay dadka deegaanka waxaan ka codsanayaa soomaalidu waa imaamaadaa waxay tidhaahdaa bihina maxamuud nugul geeridiis kuma cusba dadka deegaanka geeridu wax ku cusub ma ahan geeri waa is yaqaanaan muddaad dagaal ku soo jirteen muddaad dhibaato ku soo dhex jirteen waxaa la rabaa nabad in laga wada shaqeeyo odayaasha waanu is aragnay inta dambena waa is arki doonnaa insha allahu tacaala sidii ballantu noo ahayd nabad baa naas la nuugale waxaa loo baahan yahay inaynu isdejinno dadkii waa wada hadallay guddoomiyaha gobolka wasiirka amniga ilaa madaxweynayaasha dhammaantood waa ismaqallay waxaana isku maqallay in dadkaa la soo qabto odayaasha deegaankuna waxay ballan qaadeen dhacdadan waa soo laablaabatay inay soo qabanayaan bay ballan qaadeen insha allahu waa la soo qabanaya idinkuna soo duceeya ilaahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan duca u weydiinayaa intii dhimatay ilaahay u naxariiso ilaahu intii dhimatay u naxariiso gacan ka xaq daran baa dishay gacantaasna ilaahay soo bayti